السلام عليكم. Good. يا هرت عصب سنتك هراء أنت نشوفي قفك عصب عنتها تاج كو هذا عصب تهاي هذا عصب تهاي هذا عصبتين ما شاء الله ها جروب في عم بشر عن عصب أوكي أد ما هرت أوقف فرح سنة مر لواد إن تصل لعبنا حقيقي وحي هاي pleasure إن سنتك هراء اللي جلوا داعو أما وحلدين دعو sababtoo darsigu interactive ma noqon karo ama interesting haddii ardadu aysan ahayn dad oo u soo jeeda inay wax bartaan marka in fact waxa dhigida xiise geliya macalinka maaha waxa xiise geliya waa ardada marka waxaan isleeyahay sanadkii hore kind of successful buu ahaa insha Allah taala sanadkan waxaan rajeynayaa inuu sidoo kale u noqdo walow labada maado ay xoogaa kala duwan yihiin sababtoo faraa'idku xisaab iyo calculation iyo waxa uu baahnaa qawaacid fiqiya iyagu uma baahna xisaab iyo calculation uma ay baahan okay insha Allah taala marka sidii aan sanadka hore yeelay oo kale kitaabku waa inoo dambeynaya waxaan ku hormaraynaa qawaacidda inaan ka fargareyno kitaabku uu ku saabsan yahay oo dhan waxa weeyna ka tagna marraba hadii la hayra markaynu qawaacidii ka fargareyno baynu kadib insha Allah taala hadii loo baahdo kitaabka la qabayn doona kitaabku waa nadmi marka muhiimadiisu waa in qawaacida la barto muhiimadu nadmiga ma nadmigu waa gabay marka ujeedadu in gabayga laqwadiisa la barto ma cilmiguna sidiisa macnihiisu marka kitaab la dhiganayo ama fan la dhiganayo in kitaabka xuruuftiisa iyo alfaadiisa la laqbaysto maaha cilmigu waa in maadada la fahmo qofka hadduu maadadii fahmo iyo fanigii hadhow carabiga siduu u bartay ku xiran tahay mushkilo male inuu laqbaysto marka qaarkood inaan loo baahan baa laga yaabaa carabiga xataa inuu yaqaan kaliya qofku waa inuu maadadii iyo fanigii waa inuu garanayo okay marka waxaan filayaa inaad mar hore soo fiiriseen qawaacid fiqiya waa maxay oo idin sugeyn maanta inaad ka bilowdaan markii la yiraahdo maadadaas aad qaadanaysaan qaaliban ardadu waxay sameeyaan inay kitaabka oo haysataan laakiin shuruux raadiyaan google gareeyaan youtube-ka wax ka soo daawadaan rag hore oo sharxay ay soo dhageystaan marka waxaan rajeynayaa intaas oo dhan inaad soo samayseen oo hadda aad fahamsan tihiin waa maxay qawaacid fiqiya kan light malamiya kan ha okay right baarmontigan marka insha Allah taala kitaabkan hadda al-faraa'id al-bahiyya ba muqarrar idina saasoma faraa'id al-bahiyya fi al-qawaa'id al-fiqhiyya kitaabkaas marka wuxuu asal u yahay waxa asal u ah oo uu nadmiga ka sameeyay kitaabkan leela al-ashbah wa nadha'ir oo leeyahay Jalaaluddin Suyuti al-ashbah wa nadha'ir waa kitaabkaas oo nadmi laga dhigay wax kale ma wuxuu ka tagay in yar oo kamid ah kitaabkaas laakiin taqriiban kitaabkan nadmiga ahi kitaabka al-ashbah wa nadha'ir oo leeyahay Suyuti ayuu nadmi u rogay marka waa kitaabkaas oo nadmi ah way ها واكن good الأشباه والنظائر لجلال الدين السيوطي في قواعد وفروع الشافعية جيد كتاب كان أو نظم لقد يقوي exactly مركا كتاب هذا القاعدة إنسانين أو كتاب كاس هاي مركا ديارنا شرائح دان أما باوربوينت meelaha laga yaabo inaad u noqotaan ama aad ka faa'iidi kartaan دوركان باكمله الأشباه والنظائر أو أصله كتاب ندمجيسه شرح الفرائد البهية كتاب الفرائد البهية نفتجيسه أو ويذكر الشرحي exactly واكن للشيخ أبي بكر كان محمد صالح موسى حسين كي إيوه شرح منظومة القواعد الفقهية لخالد محمد كان ما هيسا اوكي وحكلوا القواعد الفقهية وتطبيقاتها في المذاهب الأربعة
لمحمد مصطفى الزحيلي كان مركز سجن أدو أنت أسبا فاكت أن كوبيس كري مركز أوريدي هذا صدح كم إذا وابتشر من نوع أصل كها كانوا شرحي كانوا أشباه ونظائر لبضع كتاب وكلام مش كلام إن شاء الله تعالى أوكي مركز محو كتاب سنان دونه مواضيع لا waxaan u bixiyay almadkhal in fact sharaa'ixda markaan ku dhigay sababtoo ah muqaddimaad baa ka horeeya muqaddimaad baan ka hormariyay toos qawaacidii uma aanan bilaabin marka muqaddimaadkaas darteed baan almadkhal ugu bixiyay mawaadiicda marka aan ka hadli doono waa in la tacriifiyo maxay tahay alqaacida alfiqhiya xagga luqada xagga istilaaxa waa mawduuca koowaad waxaan kaloo ka hadli doonaa farqiga u dhexeeya alqaacida alfiqhiya iyo wax la yiraahdo الضابط الفقهي فرق u dhaxeeyo muxuu noqonayaa yani mustalahaad badan baa la isticmaalo kala duwan القاعدة الفقهية القاعدة الأصولية الضابط الفقهي marka maxay kala duwanaanayeen iyagana اوكي الفرق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية نظرية الفقهية maxay kala duwanaanayeen اوكي أهمية القواعد الفقهية محين أبرنا محي أهمية ليهين إلا برتو قواعد الفقه تايم كا ساعد ما تشرتو إذن كا يقان قورت بريك ونقوم دونيه أوكي حجية القاعدة الفقهية ما الحجية سنكرا قاعدة الفقهية تاريخ دي أي صومرتي تاريخ القاعدة الفقهية يعني سو ديفلوب جرودي تاريخ أي قاعدة فقهية صومرتي قرما يقول رئيسي يا حجابي كتمي محي صومرتي هيستوريجا يا تاريخ باك جراوند كقابك القواعد الفقهية أو ماذن مؤلفات لقى ألفي مؤلفات القواعد الفقهية أقسام القواعد الفقهية يقيموها كالدون القواعد الفقهية إلا هي أمثلة وكم تطبيقات كالقواعد الفقهية أنت أسبقكم من دون إن شاء الله تعالى وحنقول لك كتابكم وحكب العربية أقسام قواعد الفقهية إنتان ونوي إنتان كل مركب مقدمة هورا بين يدنا إن شاء الله تعالى كو كفر قرين دون هدي الهيرة أوكي وامحي قاعدة فقهية مركب وحن رواقف إيا اللبو اسكو ضاينة تعريفيان قاعدة فقهية وامحي يلا جوجل قرين بركة إنترنتكي وavailable قفكو حوجة هوس ودو دون موبايلكي وكقشية تابلتكي هيه بس هو كوريا لا هيه اوكي ما شاء الله هيه القاعدة الفقهية وام هي الأحكام الفقهية الأحكام الفقهية الفرعية اوكي يا كلا اسكو ديه هيه sanadkii hore horta wiilasha gabdhaha kee ku lahaa yaa ku lahaa sanadkii hore yaa koofka qaaday gabdhaha mise wiilasha laga daa gabdhaha ku lahaa mare haye قواعد فقه وقواعد أغلبية قواعد أغلبية وهي قواعد فقه وأصل كوسها فقه وكل سنة مسائل فربضة اليقين لا يزول بالشك وحق ليس الظهارة حق ليس الصلاة اوكي جود ما شاء الله حق قبلها أنا هيه هيه magacyada hadda waa ilaa raaliga hada waa marka hore waxba aan ka xifdiyay sanadka hore laakiin hadda hal xabo ka garan odayaashu ceebtaas leeyihiin ee okay qaacido yani kelmadu ma isticmaashay waxa la yiraahdaa circular marka isla warkiisa qaacidadu waa qaacido marka ay tiraahdo waxaan rabaa qaacidadu waa maxay waa asal kulli ah saas ma yiraahdaa okay oo soo hosgelayaan مسائل فربضان أي سوس قليا good وفورمولا عمل يعني فورمولا حسابات مركز استعمال يصير فورمولا ده واحد سوس قليا أنت سو واحد بدو حساب بدو استعمال كرتها okay good ضابط يا يقان مركز وامحي ضابط هي ضابط فقهي ضابط كسوة مثلا هل باب كسابسي يعني مسائل إن لا أروريو أما قاعدة الله سميه مسائل كهالباب أو معينة كسابسا ضابط أوكي
النظرية الفقهية يا مرة صوفي رسان النظرية الفقهية ضابط هرت تسالم ولا يسين كراه ضابط تسالم ولا يسين كرته مثال كي خصوص قاعدة اوكي الخراج بالضمان محوك سابسين مركا الباب معين مياه اوكي خراج باب كلكم سابسين خراج قاعدة وهي قاعدة أفرتن كحكم دهين وبوامكم تصحيح مثلا wax walba hariga sala yaray inuu qormo fasaado waxa in la magdiyo اوكي صح وي ان ايهابك ان هرج la magdeeyo masaasha ku saabsan waa baab muxadada waa daabit good qaacida al-usuliyya marka waa maxay marka la dooyin qaacida usuliyya iyo qaacida al-fiqhiyya maxay kala duwan yihiin ya qof gabdhaha xaqooda hay gabdhahan chance ka siinaya qaacida al-usuliyya qaacida al-fiqhiyya بس قبل امتحانك أم بيكفي عين هنا سؤالها توسكا جواب دو وإلا وواجه هذا ما قراني أكتيفيتي سودا هاي يا اوكي كان كلامنا اوكي good ما شاء الله ما شاء الله aad baa runtii waxa muuqata in raggu ay aad u soo dadaaleen aad baan ugu faraxsanahay in la soo akhriyay oo hadda waxaan ka dhigaa oo wixii idinka waa garanaya marka maxay soo lugoynaysan marka hadda intaas ila la qabayo kitaabkum kaliya weey okay taariifka marka qaacida al-fiqhiyya runtii taariifaad aad u fara badan baa lagu taariifiyay waxaa ka mid ah intaan dhan waa ka mid baalkooda laser ma leh mid laser leh inaan anagu haystaan buu malaynaya laanno haddaan la tilmaami karin wixii waa dhibaato qaarino mar kale soo saari doonaa meelunbuu ku qarsoon yahay mid laser leh anaa watay marka la tilmaami karo okay tacriifka koowaad al-Jarjani قضية كلية منطبقة على جميع جزئياتها يعني وقضية جود أو جزئيات كذا أيضا كفر جرينس قضية كلية من حيث اشتمالها بالقوة على أحكام جزئيات موضوعها كاسنا وأبو البقاء الكفوي حكم كلي ينطبق على جزئياته ليتعرف أحكامها منه أوكي هي الأمر الكلي الذي ينطبق عليه جزئيات كثيرة تفهم أحكامها منها تاج الدين السبكي أصل فقهي كلي يتضمن أحكاما شرعية عامة من أبواب متعددة في القضايا التي تدخل تحت موضوعه القواعد الفقهية للندوي أوكي أنت أسمرك تقريبا ودن تعريفات القاعدة الكلية إلى وأنا سودويه تقريبا وأنا نقول أصل جود ويسوهس قال يعني جزئيات فربضا ومسائل وأحكام لقى قاعدنا أيه قاعدة داس okay. أمثلة مركا فربضا بينه هلي دورنا إن شاء الله تعالى ورما كان شكينا يورياه أي جنتلمان هذه هو حقيقة قالوا إيه ثانية يدا الشيء كذا أوكي marka dhammaan tacriifkii la doono waa almost waa isku mid tacriifaadkan oo dhan alfaadu tacbiirku baa kala duwan okay farqiga u dhaxeeya qaacida al-fiqhiyya iyo daabit waxaan al-qaacida al-fiqhiyya kuma gaaraha baab kamida abwaabta fiqhiga daabitku wuxuu ku gaar yahay baab kamida abwaabta fiqhiga marka misaalka daabitka waxa kamida yahrumu min ar-radaa'i ma yahrumu من النسب هل كان باب كيف كسب سنيه باب الرضاعة نوج ماذا يعني قفك محل لقوة يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب معنا دوام حي فاكت حديث بلفظ يسوها تقريبا محل لقوة معناها ملفة محل لقوة محيطة معنا هذه إن لا يشيء رقة قاركود بس أنا سوقفت وضدك أنا أدكت كسودة هي
maxaa laga wadaa yaxrumu min aridaaci maa yaxrumu min anasab qof voluntary aan rabaa ma ragga hore ragga de hal qof inuu maantana ii jawaabaya mana raba haye maxaa laga wadaa macnaheeda ma idin soo maray buluqul maraamka iyo xataa meelo badan iyo waa idin soo maray haye maxaa laga wadaa يحرم من الرضاع وحرم ترمى من ما أظن حرف معنى جودهان محل جوده جودهان وحل جوده يعني وجدتكم هي وجدتكم وحي مركي ورا حرام كأهم بقى رضاعة كحرم ترمى نوتان كه نوتان وحي حرام كأجر ده وحي مركي حلال كوها وحي مركي ورا حلال كوها ما أساس ما هي ها ها يعني محرم waxaa ku noqonaya maxaarim Soomaaliyeed adigu yaa maxaarim ku ah walaasha eedada habaryarta dadkaas oo dhan waa dad adiga maxramkaaga ah oo aadan geeyin way guur ahaan aysan guuridin dhex mari karin marka sida nasabka dadkaasi waxay kaaga noqdeen maxram waxay kugu noqdeen nasab dhiig baa wadaagtaan dhalasha wadaagtaan Sooma walaasha aabaha baa dhalay eedada aabaha way la dhalatay gabdhaha dumarka noocaasa ay aadan ku guursan karin nasab dartiis intii in la mid ah yaa nuugmaduna ay keenaysaa haddii hooyo ku nuujiso hooyadaa gabadha ay dhashay ma guursan kartid soo ma aragtid hooyadaas walaasheed ma guursan kartid yani intii nasabka oo kale eedada walaasha intii nasabka ay aadan ku geyin oo kale yaadan nuugmadana aadan ku geeyin haddii ay hooyo ku nuujiso laakiin shuruud bay nuugmadu leedahay shuruudii nuugmada waa in ay la oofiyo nuugmada shuruuddeed yani 5 jeer ilmuhu hadduu nuugo hooyo 5 jeer kadib hooyadiisay noqonaysaa ninka qaba aabaheed buu noqonayaa aabihiis buu qofka noqonaya yani sida qof ku dhalay oo kale wey hooyada caanaheeda waa powerful saasay marka waxay u yihiin yani waxaad kaaga xaraam noqonaya xagga guurka nuugmada wixii ku noqonayay xaraamta yani nasabka wixii ku noqonayay ya tayada waxaan rabaa inuu wax la fahmi dadka wax la fahmi karaan rabaa okay midda kale muhiimadu alfaada iyo ma ahana macnaha ahmiyadii ah okay eedada ها ninka caanihiisa aad nuugtay hooyo aad nuugtay ninka qaba waxa weeyaan walaashiis waa ma geydid yani aabba kuu noqonaya iyaduna hooyay kuu noqonaysaa waa saas waa iyagoo ku dhalay oo kale iyagoo adiga ku dhalay oo kale ay noqonayaan nuugmadaas ama nasab kuma gelinaysa wixii nasabka sidii nasabka loola dhaqmeeyey oo kala loola dhaqmaya ma dhaxal shaqo kuma leh dhaxal shaqo kuma leh hatta adiga walaalaha iyana shaqo kuma leh adiga kaliya ku khusaysaa kaliya adiga walaalka gabar adiga walaasha xagga nuugmada waa guursan karaa marka shaqo isagu kuma leh okay good قاعدة فقهية غالبا وواحد يسكون رأسي هاي مذاهبته أوردن يقلب كوده لكن ضابطكو مذهب معين أي أنت بدل خصية وحكول دويه النواسداس يعني ضابطكو باب قارو كساب سيهي at the same time قاعدة فقهية أبواب مذاهبته أوردن غالبا وكسميهن توضى بدن بينما ضوابطه أي خاصة هاي مذاهبته مذهب معين أي قارتها أوكي فرق udhaxeeya marka waa maxay qaacida usuuliye iyo qaacida alfiqhiya ma arki kartaan gadaal ma laga arki karaa waa waadix sooma good in fact ragii kala farqiyay waa fiicnaayeen waa saxnaayeen kaliya waxaan ku daraynaa xoogaa details aan ku daraynaa ilaa 5 farqi oo u dhaxeeya qaacida usuuliye iyo qaacida alfiqhiya baan insha Allah taala sheegi doonaa hadii la helo okay قاعدة أصولية هلقا وحين نريد وحي كدنا ليسا الألفاظ العربية إيوه يعني وحي
tarjiix iyo naski iyo cumuum iyo khusuus iyo amri nahy wixii la midka ah ee ka dhalanaya alfaada inta badan haddaad u fiirsataan usuul fiqiga marka la daraaseynayo abwaab badan oo ka mid yihi waa naxw aad is leedahay soo ma alamri iyo nahyi iyo maa cumuum bay faa'iideysaa iyo kan taqriiban waa naxw marka wuxuu ku saabsan yahay iyo dalaalaat alfaad ba yani baababka hadda ugu muhiimsan usuul fiqiga alcaam walkhaas almutlaq walmuqayad yani dhammaan waxa weeyaan waa dalaalaat alfaad marka alfaada luqa carabiga maxay ku tusinayaan wuxuu ku salaysan yahay marka luqa carabiga ku salaysan yahay xoogiisu marka qawaacidda usuuliga waxay ka dhalanaysaa alfaada luqa carabiga ka dhalanaysa iyo wixii alfaadaas يعني كسابسن ونسخها أما ترجيحها أما عموم أما خصوصا وحلمتك بينما القواعد الأصولية وحي كدل ليس مسائل ليسوا جاي وأبواب كلا دون فقه كسابسن مسائل ليسوا جاي هيا كتاب ما شرحيه يا يعني الشرائح ذا باوربوينتيغا وهل دونتان ان شاء الله تعالى لكن هذا waxaan idin siin sokoro sheekh sokoro ay weydiiyay waxa ay xogaa baan ka haynaya sababta in lagu mashquulaan rabin inta hadda walba hadda laptop baad haysataan iyo tablet walba iyadoo ku mashquulay halka hortiisa been meeshu kaga mashquuli lahaa sabrada kaga mashquuli lahaa marka xogaa baan ka canaadaya inta ay dhamaanayaan وهلسان لكن إن شاء الله تعالى لا تمر هاي نوت وثيقة هذا كرتان وقران كرتان هذا نفتي هذا قفكو إنه نوت قرطه ومهم يعني قفكو وحنا ذو قرطت مركز قاركو كم مهم سيهين وحلو قرة صابت قرتان كأد قريسو وحي كان سائن أي مسكح هذا كضاهان وحي أدقعان كقرتان مضحنا وكو قرميان ساتنا وقتين كلام مغان حتى هدي أذن هينين نوت كهدي حتى أذن هينين qorida aad qorayso waxay sameynaysaa xasuustaadi bay xoog badnaysiinaysaa marka aad bay muhiim tahay wax la qoro okay marka farqiga koowaad waxaanu niri asalka xageebay ka kala yimaadeen farqiga koowaad wuxuu ku saabsan yahay asalka xageebay ka yimaadeen qawaacid fiqhiya ka imaanayaan qawaacid usuuliyya xagee ka imaanayaan mid wuxuu ka imaanayaa waanu niri luqa al-arabiyya iyo alfaadooda iyo dalaalaat al-alfaad buu ku saabsan yahay midna wuxuu ku saabsan yahay masaa'il la ururiyay masaa'il fiqhi oo la ururiyay oo abwaab kala duwan ku saabsan يعني مسائل فقهية مسائل مثلا صلاته واجب مثلا راتب يعني مسائل فقه مسائل فقهية أحكام يعني أحكام مسائل فقهية مسائل فقهية ولا يغنى مثلا ما بنانتها يقفكوا إنه بيكوا سيستقف كلا استعماله وكلا يعني مين هو كلا دوانان لأن مسائل سلفتي قاعدة أصولية ويسوس كلا ما سوس كلا قواعد أصولية أصلا النصوص بيكسب سيهن هذا تكون النصوص ما ومسائل أحكامتي قفكم حقوق وانا أكشن قفك أكشن كيس مسائل كفقه وحقوق سابسين قفكم حقوق وانا أصلا أكشن كقفك كسابسين بينما مسائل كأصول النصوص يا أدلة كسابسين على قاسكم على سكوباب ما سكوب يا مسائل كالقواعد الأصولية وحقوق سابسين أصلا أصول الفقه والنصوص بكادلا سوما iyo nusuusta sidii ahkaam looga soo bixi lahaa wala fahmaan malaynaya bayna qawaacid fiqhigu wuxuu ku saabsan yahay qofku muxuu qabanaya fiqhigu wuxuu ku saabsan qofku muxuu qabanaya salaad inuu tukado qofku waa waajib inuu maartay soomo inuu xajiyo inuu yani waa masaa'il laga rabo qofku wuxuu qaban lahaa marka kuwana marka asal qawaacidka usuuliga marka oo dalaalaadka quraanka sidii ahkaam looga soo bixi lahaa waxay u baahan tahay qofku luqada carabiga inuu fahamsan yahay leena quraanku waa carabi ku qoray sooma saadaradeed ba qawaacidka usuuliga ahi waxay ka soo jeedaan luqada carabiga iyo alfaadiisa way ka soo jeedaan af Soomaaliga ma garanayo af Soomaaliga saad fahmaysan Soomaaliga waa fiicnaa sanadka hore sanad kadib marka xoogaa Yurub la sii joogo waxaan u maleynayaa af Soomaaliga waa ilaawiye ana hadda ku sigan inaan ولو هذا هل سنة الصومالي سوى شوقي إن بدن إيسو نقطي أنا وكسكتي إن حوغا إلا هو سموغر أوكي مركا قاعدة فقهية
ومجموعة كبيرة يعني وحكك كإيمانا يا مسائل لسوقي يعني مسائل أنت الأورورية بعرف هل فورمات لو سمي هل يعني فورمات أو يسوي ماذا فلو سمي في قواعد فقهية وأساس بين قواعد أصولية أي كنت سنة يسد دلالات ك نصوص سي لو قاعدين له فرق كواد مركا waxaan oran karaa wuxuu ka hadlayaa xageebay ka soo jeedaan qawaacid usuuliya xagee ka soo jeedaan ay su'aal miya ya al alfaad hada mustawahan dadku marka uu joogo waxaan isla waxyaalaha qaar kood in la weydiin baa ku fiican baan u maleeyahay lafdi waxa laga wadaa yani kalimaadka luqada carabiga saasan ka wada alfaad kalimaad maxaa lagu macneyn jiray al kalaam huwa اللفظ المفيد المركب لفظ يعمل كلمات كي لغة عربية ألفاظ كسر لقوا ذا أوكي لأنه هذا مستوي أصلا تذكر قصوقاتين فرائد كان قاع سوق قاعدة نسان عربي وين لما يسمى ما هو قبابدي يعني عربي حتى أب هنين أوكي فرق قلبات قاعدة أصولية استعمالك أفرس كي كواد محوها كساب سنة حجابه كسر شيئا ساس كساب سنة فرق كواد فرق عن لبعض سيدا الله استعمالية قاعدة أصولية وحال الله استعماله إن أحكام تفقه الله ولا صبحه وحكى لك الله صبح يا حكى لك الله صبح أحكام تفقه نصوصتي سمع نصوصتي القاعدة أصولية ما ينفع ذا وحينفع ذا إن الله استعماله مثلا الأمر يفيد الوجوب مركان إلى هذا وقاعدة فقهية لكن حكم فقهي محان قنية الصلاة واجب على كل مسلم ومسلم كسوى حكم بينما مركان الأمر يفيد الوجوب النهي يفيد التحريم وقاعدة أصولية قاعدة أصولية صوت من نوع إن شيء قاب كيبان نسك ولا صبح يا حكم شرعي مثلا حكم كي نفتي يسيبك هذا شرعي سمع حكم شرعي محل قو تعريفية تعريف أصول فقه وصورية سمع حكم شرعي تعريف كي يسمحوها تعريف الحكم الشرعي محل قو هذا أيه هذه كلية هذا مرة بيجوا وحنا أذكر إني حقيقة بقاتان والله بهاي نرتي أيه ويلك الشيخ يركب حكم شرعي محوها أيه الحكم الشرعي أيه حكم وحاسب واجب وحاسب اوكي ولو احكام شرعيه ما لو تعريف لو كلا قيمين جرى احكام تكليفيه احكام وضعيه اقسامتها حسوسين تعريف قاد حسوستان يعني الحكم الشرعي محو تعلقا افعال المكلفين سمع وكو تعلقا يا مكلفك مكلفك افعال واكشن كي قد قبنيس اوكي marka alqaacida al-usuuliya waa wasiila lagu qofka mujtahidka ahi uu ku gaarayo maxay al-ahkaam al-fiqhiyya soo kula soo bixi lahaa marka maxaa isticmaalkoodu uu yahay waa ku kala duwan yihiin qaabkee alqaacida al-usuuliya iyo qaacida al-fiqhiyya loo kala isticmaalay waa maxay marka qaacida al-fiqhiyyana alqaacida al-fiqhiyyadu waxay dabdinaysaa ahkaamtii fiqhiga ahayd si qofku isticmaalkooda يعني التي توصل إليها المجتهد باستعمالها القاعدة الأصولية يعني أحكام تاني قاعدة فقهية وحيد ضبطنا أحكامتي فقهية أهيد مركي هو قاعدة أصولية للاستعمال يعني قاعدة أصولية وحل استعمال سي أحكام شرعية لو جارو لو هلو أحكامتي اللي هلي بيقرروا رئيسها سهرة أحكامتي مركي الهرب اللي جوها لي القاعدة الأصولية أيتنا قرروا رئيسها أيتنا قرروا رئيسها good marka waa isticmaalka iyo maxay wasiilo u yihiin farqiga labaad ma la socdaa misaanu ba iska wada hadii qofku uu fahmi waayo hal su'aal iyo laba waa la joojin karaa mushkilo male haye
midaan hadda sharaxayo okay gabadha adamana ma isku su-aal baa tihiin okay yani markii hore waxaanu nidhi waxay ku kale hadda tan ka hadlaya waxay tahay qaacida alusuuliya maxaa loo isticmaalaa qaacida fiqhiya maxaa loo isticmaalaa qaacida usuuliya waxaa loo isticmaalaa sidii axkaam sharciga lagu gaari lahaa lagu heli lahaa alxakaam sharci sidii nusuusta looga heli lahaa baa loo isticmaala qaacida usuuliya qaacida alfiqhiyana waxaa loo isticmaalaa axkaamtaas sidii loo ururin lahaa soo aada uma kala cadda ya midna waxaa loo isticmaalaa sidii axkaamta sharciga lagu heli lahaa midna axkaamta sharciga ahayd sidii loo ururin lahaa oo lasugu keeni lahaa farqigu waa kaa si loo koobi lahaa okay farqiga saddexaad mawduuca maxay ku saabsan yihiin kii koowaad wuxuu ahaa xaggee ka soo jeedaan kii labaadna wuxuu ahaa maxaa see loo isticmaalayaa kii saddexaadna hadda wuxuu yahay mawduuca ay ku saabsan yihiin waa maxay maxay khuseeyaan alqaacida alusuuliya waxay khusaysaa aladila iyo anwaacuha adilada iyo noocyadeeda kala duwan adilada iyo noocyadeeda kala duwan aladila markaan leeyahay maxaan ka wadaa aladila markaan leeyahay maxaan ka wadaa daliilka maxaan ka wadaa qur'aan sunna daliilku maxay u kala baxeen aladila almutafaq calayha iyo aladila almukhtalaf fiiha soo ma ahayn waxaasoo dhan baa soo hosgelaya adilada la isku waafaqsan yahay waa alkitaab asunna aye alijmaac alqiyaas kuwa la isku khilaafsan yahay maxaa ka mid ah maxaa ka mid ahaa qowl saxaabi alistixsaan haye sharcu man qablana maasha allah kuwaasoo dhan baa ka mid ah good marka alqaacida alusuuliya waxay mawduucay ku saabsan tahay waa aladila ku saabsanta okay mawduuca uu ku saabsan yahay alqaacida alfiqhiyana waa iska garateen baan qiyaasaya isaguna waa ficlu lmukalaf qofka mukalafkaa ficilkiisii actionka qofka uu qabanayo bay ku saabsan yihin okay u fiirsa labada qaacido almru yufiidu lwujuub daliil kasta oo amar ku yimaado wuxuu kuu faa'iideynayaa waajib aqiimu salaa amar weeye saa daraaddeed maxaa salaadu waa waajib okay alyaqiinu laa yazuulu bishak kan muxuu ku saabsan yahay isagu ficilka qofka yaqiinta shakigu yaqiintu kuma zuulo adiga ficilkaaga haddii adoo salaad tukanaya aada ka shakidid ma 3 ragcadood baa tukatay mise 4 baa tukatay maxaa yaqiina 3 baa yaqiina marka adiga ficilkaagii wey waxaa laga hadlaya laga sheekeynaya ficilkaaga haye ها لكن حدو كتاب ممكن بغنى مرة بدل ما حاجة استثناءات صح في الغالب يعني هو كل لكن وفي الغالب يعني قاعدة كاستثناء يعني يكسح القواعد يعني الفقهية كل أغلبية وصح إذا والله رنكر وسيل الرمى وصح لكن ده كل واحد يعني واحد ضبط ليس قواعد مسائل أضف بلارن استثناءات كاير استثناءات كاير واسكو مثل ما تعرف واسع اوكي فرق افراد قواعد اصوليه وطريق احكام الشرع لو لا صوبخو waxay ku dhowdahay kii labaad القواعد الفقهيه waxay dabdinaysaa qofka ahkaamta isu eg almutashabiha faagta qaacida fiqhiga waxay ku fiican tahay ahkaam isu dhow isku suwara waxaan ka rabaa aanano inaad soo aragteen in kale waxa u dhow qawaacid alfiqhiya anigu aan hadda meesha ku taariifin oo aad laga exercise inaad ku qaadataan al-ashbah wa an-nadha'ir maxaa laga wadaa al-ashbah maxaa laga wadaa an-nadha'ir way fahamtay sooma kitaabkan hadda ciwaankiisu asalka u ahay waa maxay al-ashbah wa an-nadha'ir waxaan ka rabaa marka inaad soo taariifistaan maxaa laga wadaa al-ashbah maxaa laga wadaa an-nadha'ir okay
الاشباه والنظائر تاس هو اكسرسايز ودي ان شاء الله تعالى. اوكي فرق قدام بيه قواعد كأصولية وقواعد كلية وكنت بقى مثلا سؤال هذا إن كان يدينا هذه سؤال إيمان يسا قواعد كأصولية وقواعد كلية وكنت بقى مثلا جميع جزئياتها وموضوعها بينما قواعد فقهية أي أغلبية هاي أغلبية وحلقة وذا قارب على كسوها هرية مثلا استناد بين ذا أغلبية حكمك هو على أغلب الجزئيات وتكون لها مستثنيات وحين يلاليس وحلقة صوريه هي يلاليس. اوكي انت اسمرك وشن فرقي ويكون كلا دوينهين القاعدة الأصولية هي القاعدة الفقهية. شنتا واحد ذكر رواينات سفع عن فهم سنتين شنتا أسفق يا كان أفراد سوري كان أفراد يعني القواعد الأصولية وطريق وتول أما لو لا صوبها أحكام الشرعية بالو لا صوبها قواعد الفقهية أنا وحي ضبطنا إسا أحكامتي سوء بيكون رونسا أحكامتي سوء بيكون رونسا أحكامتي الشبه هذا أولاً بيكون رونسا بدنا وتول أما آلات حكم كي الشرعي هاي كل صوب بحيث كشنادنا وحويان يعني هو تعريف جود من نوع قواعد كلية أو لما قاعدة أصولية جزئيات كذا بس استثناءات مله قواعد أصولية هي استثناءات مله يعني غالبا الجزئيات كلها الأمر يفيد الوجوب يعني أمر كستا وفائدين يا وجوب إلا إن قرينا الله لكسر فينا ستات وحكله أدلك له إلا هلا لكن أمر كستا وأنا أدلك له تشرين وفائدين يا وجوب marka dhamaan juz'iyadkaas oo dhan basoo isgalay daliil kasta oo amar ku yimaado wuxuu faa'iideynaya wujub istithnaa'aad ma leh baynaba qawaa'idka fiqhiga ay leeyihiin aqlabi way istithnaa'aad bay leeyihiin yani qawaa'id iyaga masaa'ilka isu agag ayaa mararka qaar kood masaa'ilka qaar kood xukun kale yeelanayaan marka uu tilmaami doona insha Allah ta'ala yani muhiimada qawaa'id fiqhiga waxa weeyaan qofka faqiiha إن أحكامتي مسائل كي فرها بدنا فقهها إن أورورسو يعني الفقه ومسائل شو أدب فربات سمرك قفكي أي مسائل شو أوروران بمهمة قواعد فقهيات أوكي شنطة أمريكا أنا سفي عنه كلا فهم سنتين ومهم جدا سي آخر ذا أوكي اوكي halkan waxaan uga gudbayaa wax la yiraahdo farqiga u dhaxeeya alqaacida alfiqhiyya iyo an-nadhariyya alfiqhiyya markaan dhalinyarada waxaan u maleynayaa inuu yahay inaad idinka qaadi doono baalkan hada laana wad sheekarbad u hadlaysan hoos ma hadli kartaan hore kartaan hay hoos u shakayst okay هل كان الفرق بين القاعدة الفقهية والنظرية الفقهية؟ هاي نظرية فقهية والقين مغشان. اوكي يعني الثيوري اسلام كوحو ليه فقهه ثيوريز سدا اي علمك استقول ليه فقهه ليه مثلا وحكم الثيوري وحلي هذا اسلام كوحو ليه مسميه كونتراكت تكون ولا قلان كونتراكت وثيوري والنظرية نظرية أو كونتراكت نكاح هو كونتراكت بيع محوية يسوونه وكونتراكت اللي قال لي سومه يعني كبرك هو الثيوري ملكية إيه وحلا يالنكره قفكو إنه وحيالنكره personally شخصية دي إنه قفكو ملك ويالنكره أن عيد اللو ذاقن وهي النظرية الملكية والنظرية سومارك مركا نظريات وكواس وكلا وإنه كلا فرقن دون إن شاء الله تعالى النظرية الفقهية هو موضوع فقهي ويسوس جلس موضوعات
isu egag oo kala duwan xagga arkaanta isaga ekaanayaan mawaadiicdaasi shuruudda isaga ekaanayaan axkaamta caamka isaga ekaanayaan isagoo mawduuc kasta haddana uu leeyahay arkaantiisa iyo shuruuddiisa khaaska u ah masalan hadda markaan idhi alcaqd nadariyat alcaqdi wax la yidhahdaa jira oo contract wax kastoo caqdi ah noocu doon ha noqdo waa soo hoosgelayaan haddana caqdi kasta muxuu leeyahay arkaantiisa iyo shuruuddiisu leeyahay soo ma masalan caqdu nikaax maxaa shuruud u ah weli baa shuruud u ah shaahideyn baa u ah meher baa u ah saas soo maahan caqdulbaycna maxaa shuruud u ah shaygii la kala iibsanayay inuu yaallo in uu la helo maaragtay qabuul iyo iijaab in yani ridaa uu jiro yani shuruud buu leeyahay isaguna wixii shayga naftigiisu nusa xaaraam ahayn marka nadariyadu waa mawduuc guud oo ay soo hoosgelayso mawaadiic kala duwan baa soo hoosgelaya oo iska shabahaan xagga inuu mid walba arkaantiisa leeyahay shuruud haddana uu khaas yahay hadda marka nadariyat alcaqdi oo dhan baa soo hoosgelaysa iyo nadariyat almulkiya oo kale waa ka mid waxaa kale oo lagu tacriifin karaa nadariya fiqhiya inay tahay mawduucaad fiqiga ah ama mawduuc fiqiga masaa'il fiqiga oo kala duwan ay soo hoosgelayaan qadaayaad kala duwan u fiirso nadariyadu yani qaacida fiqhiya marka aan leenahay xukun isshabaha bay masaa'ilku leeyihiin xukun isshabaha bay leeyihiin nadariya fiqhiya xukun isshabaha ma lahan xukun isshabaha ma lahan laakiin waxaa ka dhaxeeya isu ekaansho xagga mawduuc ahaan sida hadda caqdi inuu contract jiro ka mawduuc ahaan bay wadaagaan laakiin xagga xukunka ma wadaagaan marka hadda nadariya waa mawduuc waxaa soo hoosgelaya masaa'il fiqi oo kala duwan iyo qadaayaad kala duwan oo leh arkaan iyo shuruud iyo axkaam mid walba goonideeda ah marka wixda mawduuciya baa keliya unbaa ka dhexaysa sida hadda caqdi inay wada yihiin oo kale in qofku wax mulkin karo oo kale unbaa ka dhexaysa masalan waxaa ka mid ah nadariyadan hadda almulkiya oo kale waynu sheegnay qofku inuu wax mulkin karo inuu qofku caqdi ay dadku ay dhex mari karaan ay samayn karaan alithbaat waxa la yidhaha nadariyat alithbaat qofku markuu dembi galo ama dembi kaliya mulkeedii in la sugi karo waxa la sugid nadariyada in wax la sugo marka wax la xaqiijinayo marka iyadana waa nadariya marka way ka duwan tahay marka qaacida fiqhiya qaacida fiqhiya waa axkaam la ururiyey oo si agaag oo isku xukun qaadanaya qaacida fiqhiya baynamaa nadariyada ay tahay mawduucyo kala duwan oo yani qadiyad guudi ay ka dhaxayso sida caqdiga oo kale isbaatka oo kale laakiin mid walba xukunkiisu uu u gaar yahay aysan shaqo aysan isku lahayn okay مثلا نظريه الاثبات حق فقه الجنائي فقه الجنائي waxa la yiraahdaa dad qofku markuu dhib geysto crime-ka waxa la midka waxay ka kooban tahay mawaadiic kala duwan sida حقيقة الإثبات الشهادة شروط الشهادة طريقة الشهادة لو قدنايو سيدا مرخانتيغا او قفك uga noqon karo mas'uuliyada qofka yani markhaantiga noqonaya iqraarka qofku uu qiran karo qaraa'inku waa adilo kale oo aan toos ahayn sida qofka fingerprintigiisa iyo DNA iyo wax la mid ah qaraa'inta soo hoosgalaya khibrada qofka experience-giisa iyo background-kiisa macluumaadka qaadiga in qoraal uu jiro inaanu jirin dhaartii qasaamadii lacaankii waxaa soo mid walba baab gooni ah way haddana maxay soo wada hoosgalayaan nadariyad al-ithbaat bay soo hoosgalayaan yani waa mawduuc kulliya oo guud baa ka dhaxeeya oo fikrad muayana xoojinaya nadariyada waa noocaas theory-good marka way ka duwan tahay qaacida fiqhiya way ka duwan tahay okay النظرية العامة waxay iyadu ay kulansan tahay jaanib waasic fiqhiga kamida iyo mabaaxistiisa yani waa daraasa mawduuciya oo jaanibka ku saabsan baynama qaacida fiqhiga iyada ay ku gaar tahay in fact حتى qaacida fiqhiyadu nadariyadu ma aha sida qaacida fiqhi oo kale in حتى siiqa muayana
ay u habaysan tahay qaacida fiqhiyada wasiiqay leedahay qawaacid fara badan ay kusoo hoosgelayaan fact qaacida fiqhiyada waa ka waasaxsan tahay xagga isticaabka furuucda jusiga iyo abwaabta kala duwan oo ay ku saabsan tahay اوكي النظريه العامه قاعده كدوانتهي يعني واسيدي ضوابط او كلا قاعده بالنسبه للنظريات مثلا قاعده العبره في العقود للمقاصد والمعاني وقاعده فقهيه واركضنا ان شاء الله تعالى ونكون ماده قواعدنا لمد معها سيده ضابط في ناحيه مخصوصه من اصل نظريه العقد iyo waxa la midka marka in general qawaacida fiqhiga ahi ahkaam urursan oo isku mawduuc ka hadlay isku xukun leh bay ka hadlayaan baynama nadariyadu ay ka hadlayso fikrad guud ka fikradda aqdiga oo kale fikradda isbaatka oo kale fikradda qofku wax mulkin karo oo kale fikrad guud bay ka hadlaysaa marka wixii ku saabsan aqdi oo dhan baa soo isgalay nadariyadaas wixii ku saabsan isbaat oo dhan baa soo isgalaya wixii ku saabsan qofku inuu wax mulkin karo oo dhan baa soo isgalaya qawaacida fiqhiyagu waa masaa'il la ururiyo siiqa muayana leh xukun guudna uu ka dhaxeeyo farqiga waxa marayna waadix yahay nadariyada iyo qaacida fiqhiya okay ya break baan qaadanaa miya okay meel fiican bay ku istaagaysaa insha allahu tacaala intaas waxay muqadimaad caama halkan صح أهمية أي لا واي أي مهم تهاي إن الدراسين القواعد الفقهية بإن شاء الله تعالى كبلا بدونا إيه تاريخ هذا كتبنا أقسام تودا ينقل دونا إن شاء الله تعالى أنت هذا هل سؤال أي شرطومك هل سؤال بنقص ختمه إن شاء الله تعالى أما قبلها أنا هل سؤال نسيه وليش أنا هل سؤال هي فرق بين النظرية والقواعد هل هو ماشي in one sentence اوكي نظريته وفكرة بحنبار سنته مسائل محددة ولا أرورنا ما يعني سيدا فكرة عقد إنه تشري كرو إنه يعني ملك يقف ملكين كرو إثباتك محا نغون كرا مع الشهود يعني فكرة بحنبار سنته قواعد فقهية مسائل اسكو حكم سوق له ولا أرورية بحنبار سنه هذا واضح ما كليه ايه اوكي marka intaas hadii jiro ka break banu qaadanayna insha Allah taway break mise daqiiqo way 15 daqiiqo miya 15 daqiiqo saacada la noo jagaray marka ايه